السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan noo wadaa maanta qiso aad u cajiib badan. wiil ay afduubteen Jini intuu jeclaa gabadh Jina. wiilkan oo ahaa Soomaali oo jooga dalka Itoobiya ayaa waxa dhex martay qiso aad u cajiib badan. runtii hadday qisadan soo gaadho share iyo like ku samee qisadan. runtii waxaad ka dhex faa'iidi doontaa waxyaalo aad iyo aad u badan. runtii qisadeenan aad ay runtii cabsi badan tahay. haddaad yartahay daawan baan ku oran lahaa waan bilaabi doonaa muuqaalkana ila socod daawada si ay u socon doonto qisadu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة كسود وقصدني قصدا هذا يرجع بدنتاي حتى ما كسود قاعدة حلم مقلن مقالك دعوة الله بالله ولا دمات كوحنا وأنا رد وحكي في دونتا قصدا هذا بحد بعبس بدنتاي وحكود على ود صوماليا كاسو كشكاني قصدا وحكوا بالله قصدا إنسان ودعبي wiilku wuxuu yidhi waxaan u shaqayn jiray shirkadaas oo ahayd inay dadka kala geysan meelo kala duwan ahaydna shirkadda basaska. maalmaha ka mid ah waxaan degnay guri cusub ayaan degnay. guriga cusub waxaa naga soo horjeeday guri kale oo aad qabiyo ah. maalin walbana waan soo hormari jiray. maalmaha ka mid ah waxaan ku arkay runtii aad waayeel u ah. islaantaas waan soo garamaray dhowr cisho markaan soo garamaray maalin waxaan ku arkay gabadh aad iyo aad u qurux badan runtii oo dhihi malaha gabadhan adduunkaba kuma noola. gabadhan waxay ii sheegtay inay meeshan degan tahay. markaan su'aal weydiiyey gabadhan halkii ayaan iska baranay. maalmaha ka mid ah waxaa dhacday in gabadhii ay soo codsato shirkadda ay u baato gaari. waxaana lay diray aniga anoo waday gaarigaas. gaarigii aan jaraawalka ka ahaa ayaa ninkii meesha madaxda ka maamulayay ayaa wuxuu siiyey lambar iyo waraaqada ku qoranta gabadha ciwaankeedu. gabadhii ayaan la xidhiidhay waxaana ii sheegtay gurigii. markaan meesha soo gaadhay waa gurigeenaga xaafadda hore ee islaantu deganeed. markaan gabadhii arkay waxaan sidhi islaantu waxay u tahay ama qof ay soo boqoto xil walba. gabadhii waxay siisay ciwaan iyo tilmaam. gabadhii iyadoo ila socota runtii aad iyo faraxsanayd. weligay ma arag gabadh saas oo kale u faraxsanayd. gabadhan waxay ii tilmaamtay meeshii. markaan meeshii gaadhay waa meel aad jaabiba runtii aad magaalada u fog. waaba guri kii hore ka cabsi badan. markaasaasi maxay gabadhu xagga ka doonaysaa? gabadhii bac ay wax madow ay ku jiraan ayay la degtay. waxayna tidhi siisug runtii meeshii qolkii ayay gashay. haddaba xaggani sheekadu ka bilaabanaysaa. aniyo qolkii hor taagan waxaan maqlay shanqadh aad u badan. dadaadan hadalkooda fahmayn iyo waxay ku hadlayaan. cabsi iyo shanqadh badan. gabadhii runtii way raagtay. waxaan isnimaad riyoonaysaa. dhowr jeer ayaan isnima riyoonaysaa. hoosta ayaan qur-aan ka akhristay. wallaahi aad baan u cabsooday. weligay maalin iga naxdin badan meena soo marin. markaasaa waxaan aad sii maqleen barba marka dambaysa qayla aad u sii badan. gabadhii waxaan siri gudaha ma gashaa. gabadhii waxbaa qabsaday. waxaasin meesha ma iskaga tagtaa runtii anoo meeshii dhowr saac taagan yaa waxaa soo baxday gabadhii iyo islaan kale la socotaa. gabadhii islaantii bannaanka ayay wada taagnaayeen. markaan runtii islaantii gabadhan wada arkay waan aad baan u farxay. waxaan arkay inay meesha kuman tahay laakiin haddana weli qayle iyo buuq ayaa meesha ka sii socdaa. imakoonba sheekadu haddana bilow tahayba sheekadooda kumayna gaadhin. islaantii ayaa xaggayga u soo dhaqaaqday. hadda unbay bartanba qisadu furaheedu aan ka qaadaninaaba. islaantii waxay ugu tidhi dhammaan gabadhan intaan meesha ii geyso meesha meel ay ii tilmaamtay alaabta iga soo qaaday soo celi. ayaan idhi anoo runtii cabsoonay. islaanta wejigeedana aad uga argagaxsan laakiin meesha weli qayla ayaa ka socota. anoo naxsan ayaan gabadhii soo raacay. gabadhii waxaan sooga dhigay geysi runtii waxuma fahansiinayo. gabadhiina aad ayay la sheekaysanaysaa weli iska qoslaysaa runtii. waxaan moodaa ruux xabsi ka soo baxa weligii. islaantii ayaan hadalkeedii dib u xasuustay oo ahaa eedda meesha ii gee. anoo yaabanoo isku dhex yaacsan. markaasaan siri gabadhinta xagan ku dejiya adeerma iga tag ma dhahdaa. runtii haddana gabadhan aad ayaan uga hela quruxdeeda. bismillaah weligay ma aragtaada masaa u qurux badan runtii. gabadhii waxaan geeyey meeshii lay tilmaamay. meeshana waa meesha oo kale una waxba aanan haddana dhaamin. gabadhii ayaa meeshii degtay. alaabtii ay si dhaqsaa uga soo qaaday. runtii xaggan maanan masaa ugu daahinba markii way iskaga soo tagtay. markaan maadaama gabadhii meeshii ku soo celiyey maxaa dhacay haddaba sidii caadadahaydan gabadhan waxaan weydiiyey cidda iyo magacyadeeda. magaceedana waxay ugu sheegtay Ikhlaas. waxay ugu tidhi Ikhlaas ayaa la dhahaa.
anigana magacayga ayaan u sheegay. Markaasaa waxay gabadhii igu tiri weligaa ma dalxiistay? Markaasaan ku idhi haa, meelo badan baan u dalxiisaa anoo hadalka furfuraya. Markaasaan waxaan weydiiyey dadkan ay la joogta yihiin. waxay igu tilmaantay waa waalidiintay, waxaan ahayna dhakhtarad oo waa dad waayeelkaya xaggana waxaan imid inaan iyaga daweeyo. waxaan ku weydiiyey xaggay ka timid. waxay ii sheegtay magaalana weligii magaceeda aanan maqal. markaas waxaan keenay gurigeedii hore een marka horeba ka qaadan ugu imid. waxayna ii soo bixisay lacag aad iyo aad u badan runtii. waxay ku tiri lacagtan ayaad leedahay. markaasaan aqligii ii geli weeyey sababtaa lacagteeda aad bay u yareed. lacagteeda 400 baa laakiin 500 riyaal oo Ethiopian ayay soo saartay runtii. aad ayaan u yaabay runtii. anoo iska qaatay madiin sababtaa amba ciyaalka xaafadda ama tawareer igama dhacdo. maalintii xaggaas ay ku dhammaatay. maalintii xigta haddana sidoo kale ninkii mudanaha ayaa meesha aan uga shaqaynayay haddana yidhi orod meesha shalay tag oo gabadhii batay tag. maantana sidoo kale unbay qisada u laba socotaa. haddaba maanta sidoo hore way ka duwan tahay. gabadhii marka gurigii islaantii ay gashay, islaantii waxay sheegi jirtay islaantii baa igu tiri guriga soo gal kaale wax nala qabo. haddaba maxaa la qabtaa sheekadu xaggan eeba geliyey. runtii markaan meeshan soo galay waxaan arkay waxaan noloshayda aana aaminin. waxaan arkay meesha gurigan dusha ka qooshamaa oo meel walba dahab ka laalaado. acuudu billaahi min ashaytaan rajiim. runtii aad ayaan u yaabay gurigan si u qurux badan yahay iyo korkiisu uga foosho xun yahay. gacmaha ayaan dhaban ka saaray. wallaahi aad ayaan u yaabay. islaantii waxay ii dirtay boog meel saarnaa anoo guriga quruxiisii ka yaaban. ayaa markaa waxaan soo qaaday boogtana waxaa ku qornaa waxaana abid aan la fahmin si u socday qaabka u yahay booga iyo sawiro qadiimi ayaa ku sawirnaa. runtii boogta aad ayay qadiimi u haayeen. markaasaan soo dhaqaaqay meesha ii tilmaamtay ayaan dhigay guriga ayaan iskaga soo baxay anoo dhabanka gacanta ku haya. gabadhiina iga hadhay. markaasaa waxaa dhacday gabadhii way soo baxday. waxaana ku noqonay xaafadeedii hore islaanta ay joogtay. barta ayaan gaariga dhigay. sidoo kale maanta haddana 1500 kale ay siisay lacagtii intii shalay iyadooba ka siiyaan maanta oonan meel soo wada marmarin. haddaba maxaa dhacay marka? haddaba waxaa dhacday in laga soo riyay shaqadii sababta aan aad ayaan caajis badnaa. waxaana dadka ciyaalka xaafadda ugu caajiska badanoo markaan shaqo loo dhiibay. runtii xilliga shaqada la tago 8 waxaan iska tagi jiray 9. runtii aad baan u daahitaan badnaa. waxaa laga soo riyay shaqadii. haddaba gabadhii ikhlaasayd maalin anoo guriga iska jooga ayay igu timid. waxayna ugu tiri waxaan rabaa inaan soo dalxiisiiyo. waan u sheegay in shaqadii laga soo riyay. waxay igu tiri dhib male, anaa inoo hay lacag weyn kaale adigu raacun. runtii waan raacay. bartan waxaa nooga bilaabatay nolol cusub. runtii muddo ku dhow 2 bilood ayaanu israacinay meelaha soo wada wareegsanaynay. runtii waa iga farxad badnay. nolosheeda maynay soo marin, imaana soo mari doonto. runtii kolba meel ayaan tagnaa. lacagta gabadha iyada akhris garanaysaa. maxaad malen wiil ciyaalka xaafada ay u timid gabadhi kadibna lacag ku xaqinayso soo u socon. maalinba meel ayaan tagnaa. maalinba Itoobiya meel cusub ayaan ka tagnaa. magaalada ayaan ku warwareegnaa. haddaba gabadhi waxaanu dhex maray jacayl aad u kulul. runtii inaan ka joogi weeyo iga joogi weyda ayaa dhacay. markaas noloshanadii way isbedeshay. runtii imika waxaanu isbaranay si dhabaan isu baranay. runtii gabadhuna waxay tagtaa xaafadeedii yarada. runtii aad ka cabsida badnayd. anna waxaan iska soo tagaa qolkaygii mana fahansanin. wiilka saaxiibka ayaan u sheegay xidhiirkii gabadha naga dhexeeyay. markaasuu igu yidhi niyow imika ilma yar baa tahay iswareerin walaalow. anoon hadalkiisa dhagjaal qusaynin ayaan iska baashaalayaa. kolba maalin baan iska raacayaa. runtii 3 bilood ayaan kolba maalin meel soo maraynay. haddaba maxaa dhacay? macallin ayay gabadhii igu soo noqotay. haddaba anoo isla maanta aad baad u faraxsan tahay. runtii maalin iga murugo badneed ma jirin. maanta gabadhii waxay igu tiri waxaan tegayaa reerkanagii ama dib ayaan noqonayaa. sidaan hore kugu soo sheegay gabadhu waxay digtoorad. waxayna joogtaa waayeelka soo daweysa. waalidkeeda ayay u timid xaggan. runtii waxay siisay lacag aad iyo aad u fara badan. way igu tiri intaan kuu soo laabanayo iska sii haysto. runtii waa ruux gabadhu wax ka fahansanay runtii nolosha. aniga ma ogey meelay lacagta ka keenayso. runtii maadaama ciyaalka xaafadda ayna horeen baan lacagta ka qaadanayo maana isaadkeyn jirin. runtii gabadha aad ayay jeclaatay. marka iyada xagga jacaylka naga marka la eego iyada aad ayay jeclayd. runtii maalin walba way soo wici jirtay. runtii anna xarfaannimo waxaan ka qabo lacagtan baan ka qaadi jiray oon runtii jacayl saa u sii weyn iima hayo. runtii haddaba gabadhii 3 bilood ayayna ii iman. haddaba maxaa dhacay imika? saan anigu hore kugu soo sheegay waa lay soo eriyey.
shaqadii ayaa laga soo eriyay gabadhii 3 bilood inama saarin iyo dhul meel ka baxdo waan waayay ugu jiro waan kugu soo noqon ma inagu soo noqonin maalin maalmaha ka mid ah markay 3 bilood ka soo wareegtay waxa ii yimid ninkaas oo lacag badan ii waday wuxuu yiri gabadhii ikhlaas la dhaho adiga sameeyna in saaxiib ahayn oo dad isu dhawaanayn ayaa runtii ku yiri talo muxuu ku wadaayaan sidii ninkan talo nin aad u quwad weyn ayuu ahaa aadna u cad runtii wuxuu ii soo fidiyay lacag wuxuuna igu yiri aday ku soo dhiibtay lacagtane waana ka qaaday lacagtii runtii markaasuu wuxuu igu yiri gabadhii waxay joogtaa meesha ableed magacaadka waad kadan magaceeda ana fahmayni waana ku iman doontaa inta kadib iga tagay hadaba maxaa dhacay markii inta kadib iga tagay markii aan lacagta qaatay inta kadib waxaa dhacday in 2 bilood kadib haddana ay gabadhii ii timid runtii aad bay ku dhegdegtay runtii anigana markaan buuba jacaylku galayba weligeed ma taaban jirkeeda runtii waxayna igu dhegtay sidii lama yar weydii ka lumay runtii weynay igu dawaanyaaba waxaan sir gabadhii ma la soo dilay inay waxba ii jawaabin anoo iska ciyaalka xaafadda runtii oo aad ka u dhibadnaa ayaa gabadhii qabsaday leen gabadhana baxarfaan ayaan iska inaani igama dambayso runtii xaafadanadan waan iskaga soo tegay wadaladeeyaanka Soomaaliyeed xaafadinay tagan tahay waxaan ay xarfaan soo shaqo doontay aan idin wada qisada gabadhii way igu dhegtay markay gabadhii igu dhegtay maxaa dhacay gabadhani waxay ii sheegtay runtii in aabaheed ii diiday oo yiri kuma siinayo wiilkaas sababtaan miskiin aan waxba warkahaynin baanahay gabadhani ileen waajinaysaan kugu soo sheegay xaq oo horaba gabadhani waajinay aabaheed wuxuu yiri kuma siinayo ruux bilaadana ilaa yodii kanto gabadhi waxa uu tiri nabada raac ana xad wax ma war mooga ayaanahay ma oga meeshaan u socday isma oga naftani waan iska raacay gabadhii waxay igeysay gurigii waxaan igu tiri soo gal runtii gurigii marka hore aan kula aad ayuu sharaxnaa qolkii aad ka u foosho xumaa anoo isla meeshan maxaad ka doonaysaa ayaan galay runtii markaas u galay ayaa igu dambeysay miir iyo hadalba xaggaas ayaa igu dambeysay aragayga meel midow ayaa galan waxba aan ka arkayn runtii waxaan soo toosay xilli aan waxba aan maqlayn meel shaqadama waan qayliyo iga fura meesha ayaa jooga aad ayaan dhawaaqay laakiin hadda maxaa dhacay qisadu hadda waxay bilow tahay sidaan kuu soo sheegay waxaan ku soo mirsay meel aad u mugdi ah runtii aadna u cabsi badan mar waxaan maqlayay saacaddeeda shanqadheeda keliya shaqo la'aanta meel ka jirta hal mar waxa ay bilaabmatay qaylo aad u dhawaaq badan runtii meeshaan waxba kama arko wallaahi riya iyo life waxay tahay waan kala garan waayay meeshaan halkan ku jiro wadnahayga ayaa aad u shanqadhiyay wallaahi nolol waa iga cabsi badnay nolosheeda maanay soo marin marka qaar waxaan maqlayay shanqadhaadu badan qaylo dadana fahmaynin yaa ilaahi meesha in iga saarayaan quraan ayaan hoosta ka akhristay ilaan fadulba meesha ay keentay haddaba yaa iga saaray meeshii saacadaan eega wax way isbedeli waayeen waan kaca waan dhex wareega meeshii runtii waxaan moodaa meel garoon oo lagu sii dhexdaayo leeyla waan socdaa meesha wada dhabaataba qayladuna aad bay u baxaysaa shanqadha ka sii daran wadnuhuna aad bay xanuunay runtii wallaahi markaas waxaa dhacday inuu hal mar aragay soo laabtay meeshaan ku jirana yara iftiintay waxaan arkay nin xaggayga oo sii socda wuxuu igu yidhi waxaad doonaysaa inaad adduunkii ku laabato yaa waan yaabay waxaa iga soo hadhay maxaa tidhi adduunaa waxaan sidhi maad soo dhimatay maad walba artay wuxuu yidhi staji waxaad joogtaa jinka caalamka jinka ayaad joogtaa anoo aad u gariirayaan jin iyo waxa laga sheekayn waayo waan fahmi waayey waxaa la ii sheegay in laysoo afduubta haddaba qaylada daraaddeed iyo buuq qaba hal mar ayaa ninkii weeyay haddana waxaad moodaa in meeshan laisku ciyaarayo film la duubayo waxaase ma baraankiba ma runba waan geeriray haddana waan dhawaaqay waxaan arkay gabadhiyo xaggayga u soo socotaa gabadhan aad bay u dhalaalaysaa markan adduunkasayna u dhalaalin bay u dhalaalaysaa wejigeeda wuu iftiimayaa waxay ugu tidhi staji anoo yaabanaan ku idhi maxaa istajiya aawi meeshanadii waan canaantay waxay ugu tidhi waxaad joogtaa jinka caalamka mardhowna waxaa lagu geyn doonaa aabbahay gabadhii waxay tidhi waxaa lagu geyn doonaa aabbahay aabba maxay haddee fadul baan meeshani keentay qaylan afka furta bal inay
meesha iga saarto bal aad baan u qayliyey xoog badan ayaa runtii yimid baaxawna igu dhuftay runtii kadibna waxba igu dhuftay kadibna muuji miirkayga xaggaas ay igu dambaysay haddaba barton bay qisada ka waalanaysaaba xaggan wiilku wuxuu haddaan yar qisada idinkala sii saaro wuxuu yidhi waxa ligii qasri gabadha aabbaheed oo bila'aadanka runtii eeg bila'aadan nolosha ka qurux badanna ama arag say u dhaadheer yihiin midabkooda kalarhkooda sida loo kala dambeeyo sida loo kala amar qaadanayo gabdhaha runtii jooga aad ayay meesha iga yaabiyeen wallaahi runtii meeshan ninkii boqorka ayaa i soo dhoweeyey maxaad rabtaa baa ligu yidhi maxaan rabaa waana qayliya adduunkii gu celiya baan waxaa ligu yidhi wax adduuna lagugu celinayo ma jirto gurigaaga cusubi waa xaggan qaybta la soco qisada qaybteeda labaad ilaa waa 5 xalqadood runtii hal xalqad hadday ku dhaafto waad wareeri doontaa si aan ugu wareerin waxaan ka codsanayaa inayna qaybna ku dhaafin qaybta xigtana isla caawa ayaan soo gelin doonaa